kulankan oo ay ka soo qayb galeen isimada iyo waxgaradka gobolka Sool ayaa lagu taageerayay ugaaska cusub ugaas Maxamuud ugaas Cabdilaahi Ciise Nuur waxaana ka soo qayb galay isima ay kamid ahaayeen garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale garaad Cabsalaan Xasan Maxamed Suldaan Maxamed Aadan Golcad wakiilo garaado cuqaal waxgarad ganacsato iyo bulshada qaybeeda kala duwan sidoo kale waxayna khadka telefoonka kaga soo qayb galay munaasabada lagu taageerayo ugaaska cusub salaadiin ay kamid ahaayeen Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed Suldaan Saciid Yuusuf Ducaale ugaas Maxamuud ugaas Cabdulle Islaam Bashiir Islaan Cabdulle ugaas Cabdilaahi ugaas Farcade ugaas Maxamuud ugaas Cabdilaahi Ciise Nuur tani ku dhawaaqistiisa waxa soo badanaysay taageerada buuxda ay u hayaan isimada dhaqanka gobolka Sool Sanaag iyo Cayn waxaana kulankan maanta ka qabsoomay hotel Mustaqbal goobjoog ka ahaa waxgaradka iyo ganacsatada waaweyn culimaadudiin iyo hawdoorka bulshada waxaana dhammaan dadkii munaasabadaasi ka soo qayb galay ay taageero soo dhaweyn iyo muujiyeen ugaaska cusub waxaana la filayaa kulamo sidan oo kale ah oo lagu taageerayo ugaaska cusub ay ka qabsoomaan magaalooyinka Boocame Boohoole iyo daafaha caalamka waxaanu hawshan u nimi oo soo fadhiisanay in aanu taageersanahay ugaas Maxamuud ugaas Cabdilaahi Nuur Ciise isagana waxaanu ku ducaynaynaa insha Allah kiinaan ficilaha ugaaska cusubna waan soo dhaweynaynaa beeshu soo xushay aabihii bedelaya waxaan uga barinaa Ilaahay inuu noqdo kiib anfaca dadka goboladan dega waa doorateen isaga waxaan ugu ducaynaynaa xilka aad u dhiibteen in Ilaahay u fududeeyo kii ka soo baxana uu noqdo waanu soo dhaweynaynaa Ilaahay aabihii iyo intii dhimatayna Ilaahay ha u naxariisto waxaanu ugu ducaynaynaa in xilka Ilaahay aad u garateen ugaasku wuxuu jiraa Mareykan buu hadeer joogaa waxaan aad ugu hambalyeynaa u bawaadinaa nin maqan oo ay doorteen oo aan khilaaf lahayn annaguna khilaaf keeni mayna isa kay doorteen ma uga dooranay inankan iyo aabihiiba hore loo doortay sababtu waxa weeye xawaalkiisii aan joogaaskiisii 4,000 oo qof waxay mar ku dhawaaqeen inuu yahay ugaas cadaalad sugan tahay oo nabad jecel cusub aad soo doorateen aad isku wada raacdeen aan khilaafku ka jirin ee idinku doorateen annaguna waa idin la dooranay waan soo dhaweynaynaa waan ka mahadnaqanaa dhaqan loo doortay beeshiisu u dooratay sida aad u doorateen ayaan idin la dooranay waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa haddaanu nahay ama ganacsatadii ama shucuubta laascaanoo dadka deegaanka ugaas Maxamuud ugaas Cabdilaahi Ciise Nuur anigoo garaad jaamac garaad cali ka wakiila waan u gudbin doonaa haddii alla idmo waxaan qaybta aan ku leeyahay garaadka wuu gudbin doonaa waxaan leeyahay soo dhaweyn wanaagsan ugaaska waa soo dhaweynaa isim kastoo cusub waxaad moodaa inuu wax soo baxayo aan aad u xiisaynayahay waxaan leenahay ugaas Maxamuud ugaas Cabdilaahi Ciise ku soo dhawow dhaqanka dhulbahante ama deegaanada tan aad iyo aad baan kugu mahadinaynaa inaad nagu soo dhawaatid oo timaadid haddii Ilaahay idmo waana ku sugaynaa ugaas Maxamuud ugaas Cabdilaahi Ciise Nuur waxaanu leenahay ugaas Maxamuud oo ku soo dhawow golaha dhaqanka ee beelaha Soomaaliyeed ku soo dhawow golaha dhaqanka ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn beesha Xasan ugaasna waxaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad u soo xusheen waxaan u maleynayaa saldanadu marbay ahayd Xasan ugaas wada lahaa waa markii ugaas Cabdilaahi Ciise la dooranayay bay ahayd markaana ugaas Cabdilaahi bay soo xuleen hadeerna waxa weeye Soomaalidu waxay tii lafaha gurbaale xaraganaha ka tagin wadadii uu wakiilkii garaad ku sheegay Cali Nuur ayaad marteen oo dhaqanka deegaanka uu ahaan jiray in aad soo xushaan ugaaska wiilkiisa waa abaartii ay ahayd way waxa kale idin yaalaan waxa weeye war hawshii ballaadnayd sideen u qaban lahayn way
تلفونka uga soo qayb galay isimada ay ka mid yihiin Suldaan Mustafa Maxamed Wasiir Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale Islaam Bashiir Islaam Cabdulle iyo Ugaas Cabdullaahi Ugaas Faracade Muulis Ismaaciil Haradiga Soomaaliya TV Lasxaan ugaas maxamuud ugaas cabdilaahi ciise nuur waxa uu ka mid yahay qurba joogta u dhalatay gobolka Sool geeridii Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiya ugaas cabdilaahi ciise nuur kadib waxa garadka iyo cuqaasha beeshiisa isla garteen inuu noqdo ugaaska beesha kaasi oo badal u noqonaya marxuun ugaas cabdilaahi ciise nuur waxaana socota qabanqaabada caleemisaadkiisa oo ka dhici doonta degmada Boocame ee gobolka Sool maxamed axmed jaamac maxamed bidaanshe TV-ga caalamiga ee Kalsan magaalada Laascaanood